burburkii dowladdii dhexe wuxuu galaaftay adeegyadii aasaasiga ahaa ee bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka kadibna waxaa dalka ka curtay dadaallo lagu soo noolaynayo waxbarashada oo ku bilowday waxbarashada aasaasiga ah una sii gudbay waxbarashada sare si aan u gudanno waajibka naga saaran bulshadeenna oo kaalinteenna ugu biirino dadaalladaas lafdhabarka u ahaa dib u dhiska dalka ayaan go'aansannay inaan aasaasno jaamacadda jamhuuriya ee sayniska iyo tiknoolajiyadda oo ku astaysan aqoon tayaysan jaamacadda jamhuuriya waxaa la aasaasay 2011 xilli jaamacado badan waddanka ay ka furnaayeen laakiin ay noo muuqatay in wax lagu kordhin karo tayada waxbarashada sare markii ugu horreysay waxaa laga furay xaafadda geed jacayl ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho waxaana lagu furay 4 kuliyadood iyo 8 fasal iyadoo tiradii ardayda berigaas la qaatay ay ahayd ilaa iyo 400 oo arday diyaarinta agabka lafdhabarka u ah waxbarashada ayaan siinay muhiimad iyo mudnaan gaar ah wuxuuna la kowsaday furitaankii jaamacadda waxaan ardayda u diyaarinay shaybaarrada lama huraanka u ah takhasusiyadooda si ay baraatikada iyo cilmi baarista ugu kaashadaan waxaan sidoo kale jaamacadda ka hirgelinay maktabad aan ku diyaarinay kumanaan buug iyo maktabad dijitaal ah oo ay ardaydu wax ka daalacdaan si ay u kobciyaan aqoontooda iyo ogaalkooda furitaankii jaamacadda wuxuu sidoo kale la kowsaday adeegsiga tiknoolajiyadda oo aan u kaashanno maamulka shaqooyinka maalinlaha ah ee xafiisyada iyo diiwaanka ardayda laga bilaabo diiwaangelinta ilaa iyo qalinjebinta ardayga waxaana xusid mudan inay casriyeynta nudubdhaxaad u ahaayeen ardayda dhiganaysay jaamacadda waxaa mobilkayga ku jira applicationka jaamacadda waxaan kala socdaa ogeysiisyada natiijadeeda imtixaanka iyo qarashaadka waxbarashada barnaamijkan ayay macallimiinta naga xaadiriyaan waxaan jeclahay inay waalidkay la socdaan kuna farxaan dadaalkayga waxaan jaamacadda uga mahadcelinayaa inuu barnaamijkan leeyahay qayb loogu talagalay waalidka oo ay kala socon karaan natiijadeeda guusha ugu weyn ee aan xaqiijinay waa kaalinta aan ka qaadanay horumarinta bulshadeenna waxaana diiwaanka galay sheekooyin xiiso iyo diilo badan oo ay jaamacaddu gundhig u tahay iyo guulaha dhallinyaro aan ka qayb qaadanay ifinta iyo isbeddelka noloshooda 2018 ayaan ka qalin jabiyey kulliyadda injineeriyadda ee jaamacadda jamhuuriya kadib waxaan fursad waxbarasho ka helay mashruuca horumarinta howlwadeennada jaamacadda jamhuuriya waxaana master degree ka soo diyaariyey jaamacadda Near East University ee waddanka Qubrus hadda waxaan waxbarasho PhD ah ka helay jaamacadda King Fahd University of Petroleum and Minerals ee boqortooyada Sacuudiga waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda jamhuuriya sanadii 2021 waxaan ka diyaariyey kulliyadda caafimaadka gaar ahaan daawada iyo qalliinka guud waxaan dhawaan ku baasay imtixaanka membership Royal College of Obstetrics and Gynecology qaybtiisa koowaad ee dalka UK kaasoo ii suurtagelinaya inaan ka shaqeeyo waddanka UK iyo wadamo badan oo caalamka ku yaalo dhallinyaradii ka aflaxday jaamacadda oo hal abuurayaal ganacsi iyo xirfadlayaal isugu jira waxay ka muuqdaan oo ay kaalin muuqata ka ciyaaraan suuqa shaqada waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka sheego in howlwadeennada MyBank ay ka mid yihiin qalinjabiyaal kasoo qalinjabiyey jaamacadda jamhuuriya kuwaasi oo runtii udubdhaxaad u ah howlo muhiim ah oo bangiga ka socda tiimkaas jaamacadda jamhuuriya kasoo qalinjabiyey waxay nagu soo kordhiyeen aqoon karti firfircooni iyo dhiig cusub waxay sidoo kale inoo xalliyeen caqabado iyo mashaakilaad u baahnaa aqoon iyo karti oo runtii aynu ka fikiraynay in aan dad ajaanib ah dibadda ka keeno si aynu ugu xalliyaan cilmi baarista iyo hal-abuurku waxa ay ka mid yihiin tiirarka ay jaamacaddu ku taagan tahay si aan kaalin lixaad looga qaadanno baadigoobka xalka mushkiladaha ragaadiyey dalkeenna waxaan hirgelinnay xarun u taagan horumarinta cilmi baarista waxaan ka qayb qaadannaa abuurista aqoonta waxaana daabacnay boqolaal cilmi baaris oo qaarkood lagu daabacay joornaallada ugu tayada sarreeya caalamka sannad kasta waxaan ka qayb qaadannaa agaasinka shirarka cilmi baarista ee ugu waaweyn dalka sida shirka injineeriyadda sayniska iyo tiknoolajiyadda shirka caafimaadka iyo shirka horumarinta ganacsiga iyo hal-abuurka oo aan iska kaashanno jaamacadda simad iyo jaamacadda samsam ee sayniska iyo tiknoolajiyadda jaamacadda jamhuuriya ee culumta iyo tiknoolajiyadu
waxa ay leedahay 5 tiir oo lama taabtaana oo kala ah in la ilaaliyo tayada waxbarashada, hufnaan shaqo, hal abuurnimo, isla xisaabtan iyo daryeelka bulshada. sidoo kale waxaan ardayda jaamacadda u diyaarinay in ay curiyaan xalka mushkiladaha haysta bulshadeenna. waxaan mas'uuliyad gaar ah iska saarnaa waxbarashada ardayda danyarta ah oo aan sannad kasta siino deeqa waxbarasho. waxaan sidoo kale ardayda gasha kaalmaha hore ee kulliyadaha ku dhiirigelinaa deeqo dhammaystiran. muddadii aan dhiganaya jaamacadda jamhuuriya semesterkii koowaad oo keliya ayaan waxbarashada lacag ku bixiyey. wixii ka dambeeyey waxaan jaamacadda ku dhiganayay lacag la'aan maadaama aan semester kasta gelayay kaalinta koowaad. waxaan jaamacadda jamhuuriya uga mahadcelinayaa fursadaas ayna siisay iyo deeqdaas kartida iyo aqoonta loogu tartamo. sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan ahaa gabadhii ugu horreysay ee ku biirta howlwadeennada jaamacadda jamhuuriya. sannad kastana waxaan qabanaa tartanno qur'aan iyo suugaan isugu jira oo aan ku bixinno deeqa waxbarasho. xilliyada adag sida abaaraha iyo fatahaadaha waxaan ka qayb qaadannaa gurmadka loo fidinayo dadkeenna. waxaana ardayda jaamacadda ku barbaarinaa in ay dib wax ugu celiyaan bulshadooda. ardaydeenna caafimaadkuna waxa ay daryeel iyo wacyigelin joogto ah la garab taagan yihiin dadkeenna nugul. waxaan xiriir iyo iskaashi la samaynay bahda waxbarashada iyo cilmi-baarista ee Soomaaliya, Afrika iyo caalamka. sidoo kalena waxaan heshiisyo kula jirnaa jaamacado caalami ah si aan isaga kaashanno waxbarashada iyo cilmi-baarista. himilooyinka jaamacadda jamhuuriya ee culumta iyo teknolojiyadda waxaa ka mid ahaa inay horumarinta waxbarashada sare uga qayb qaadato cilmi-baaris iyo aqoon tayaysan, inay soo saarto hogaamiyeyaal awooda inay la jaan qaadaan saamaynta cilmiga casriga iyo isbeddelada caalamka. sannadihii aan jirnay waxaan hirgelinay xarumo kaalin ka qaatay horumarinta dalkeenna iyo dadkeenna. waxaan dhisnay xarunta horumarinta adeegyada tiknoolajiyadda ee JTAC, xarunta horumarinta hal-abuurka ganacsiga iyo hibada dhallinyarada ee JIC, iyo xarunta horumarinta xirfadaha ee JBTAC oo martigelisa imtixaanno caalami ah oo loogu safri jiray dalka dibaddiisa. sidoo kale markii aan aragnay baahida loo qabo ayaan hirgelinay xarunta daraasaadka sare ee CGS. magacaygu waa maxamed cali macalin cabdi, kana aflaxay kulliyadda kombiyuutarka ee jaamacadda jamhuuriya. kadib waxaan master of data science ka bartay isla jaamacadda jamhuuriya. 3 sano ay la soo dhaafay waxaa maamulka ahaa xarunta jamhuuriya professional training and exam center. hadda waxaan deeq waxbarasho oo PhD ka helay dalka Ruushka. si aan isugu xirno ardayda jaamacadda ayaan dhisnay ururka ardayda jaamacadda ee JUSA oo u taagan arrimaha ardayda ayna ku horumariyaan xirfadahooda hoggaamineed. waxaan ahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya iyo xubin ka tirsan guddiga horumarinta adeegga bulshada ee golaha shacabka. waxaan ka mid ahaa dufcadii koowaad ee ka aflaxday kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda jamhuuriya. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay adeegayaasha qaranka ee jaamacadda jamhuuriya soo saartay. waxaan sidoo kale aas-aasnay ururka qalinjabiyaasha jaamacadda ee Jamhuuriya Alumni Association oo isku xira ardayda ka qalinjabisay jaamacadda. waxaan martigelinnaa barnaamijyo ka baxsan waxbarashada nidaamiga ah. kulliyad kasta waxa ay leedahay maalmo ay ku soo bandhigto hal-abuurkeeda iyo mashaariicda miradhalka ah ee ay hirgeliyeen ardaydeedu. sannad kasta waxaan xusnaa toddobaadka dhaqanka ee jaamacadda si aan u noolayno ardaydeennana ugu barbaarinno dhaqankeenna suuban. waxaan ardayda u qabannaa barnaamijka tartanka cayaaraha oo dhex mara kulliyadaha jaamacadda, qalinjabiyaasha ayna kula cayaaraan jaamacadaha kale ee dalka. 12 sano kadib aasaaskii jamhuuriya waxaa jaamacadda ka aflaxay 2826 arday, waxaana dhigta 4796 arday. jaamacadda waxaa ka howlgala in ku dhow 300 oo macallin iyo shaqaale 100 ka badan. 12 sano kadib jaamacaddu waxa ay leedahay 3 kambas, 4 kulliyadood oo bixiya 22 takhasus, 12 shaybaar iyo 5 xarumood oo hoos taga jaamacadda. waxaana noo qorshaysan in aan sii horumarino si aan uga dhabayno hiigsiga jaamacadda ee ah aqoon tayaysan. 12 sano kadib aasaaskii jaamacadda waxaan wadnaa qorshe aan kambas casri ah ugu dhisayno duleedka caasimadda oo aan dhulkiisii diyaarinay. waxaana socda dadaallo aan jaamacadda ugu abuurayno ilo dhaqaale oo ay ku tiirsanaato.
waxaan hirgelin doonaa qorshayaal kor loogu sii qaadayo tayeynta barnaamijyadeena waxbarasho waxaanan sanadkan daahfuri doonaa xarunta luuqadaha si aan u xoojinno afka waxbarashada ee jaamacadda 12 sano kadib waxaan bulshadeena ugu bishaaraynaynaa inaan dhowaan soo kordhinayno takhasusyada beeraha iyo xanaanada xoolaha oo ay nolosheennu ku tiirsan tahay lafdhabarna u ah dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalkeena waxaan xoogga saari doonaa horumarinta shaqaalaha iyo barayaasha jaamacadda xoojinta cilmi baarista iyo kobcinta iskaashiga aan la leenahay hay'adaha waxbarasho iyo abuuridda xiriiro cusub oo miro dhal ah waxaan qorsheynaynaa inaan abuurno sanduuqa taageerada waxbarashada ardada saboolka ah ee kartida leh si aysan duruufo dhaqaale dartood uga harin waxbarashada waxaan naga go'an inaan sii laba jibaarno dadaalada aan ku horumarinayno hal abuurka dhallinyaradeenna oo aan kala shaqayn doono kobcinta iyo maalgelinta fikradahooda ganacsi waxaan sidoo kale xoogga saari doonaa diyaarinta iyo carbinta adeegayaal iyo hogaamiyayaal bulsho oo ka qayb qaata horumarinta dalkeena iyo dadkeena waxaan halkan uga mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo aan heerkan ku soo gaarnay tawfiiqdiisa iyo cid kasta oo kaalin ka qaadatay horumarka jaamacadda waxaa noo guntamay 12 sano oo adeeg dadweyne iyo saamayn bulsho ah waa 12 sano oo aan u taagnayn horumarinta nolosha bulshadeenna kobcinta maanka ardaydeenna iyo ifinta mustaqbalka dhallinyaradeenna waxaana naga go'an inaan joogtayno oo aan sii laba jibaarno dadaalada aan ku horumarinayno dadkeenna iyo dalkeenna jaamacadda jamhuuriya hoyga aqoontayaysan